cuqaasha iyo waxgaradka ku dhaqan gobolka Salal oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Saylac ayaa guud ahaanba waxay ku nuuxnuuxsadeen xaaladda guud ee deegaanka Xariirad. Ogoreyntii ayaa shirkan jaraa'id waxa ka hadlay barasaabkii hore gobolka Salal Maxamed Muuse Bucul Booqbooni waxa uu hoosta ka xariiqay xaaladda guud ee deegaankaasi Xariirad iyo in ay horkacayaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga isagoona eedeyn culus soo jeediyay waxaana hadaladoodii kamid ahaa xaalado hore deegaanka uga jiray isla markaana ilaa imika taagan haddii aan ku bilaabo kullay sidaad horeba anaguna aan uga hadalnay dalka dhamaantiina laga wada og yahay ama dadka waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo cid walba Soomaaliland ay ogtahay maanta qof ay ka qarsoon tahay ayna jirin dhibaatadii ka dhalatay doorashooyinka waana marxalado badan baa la soo maray khilaafkaasi ilaa hadda waa taagan yahay wax alla waxay xukuumaddu ka qabatayna ma jirto walow mararka qaarkood annagu aan isku dayna xitaa inaan kolkaanu aragnay halka uu khilaafkaasi gaaray iyo sida ay xukuumaddu uga marin haboosan tahay dariiqii loo mari lahaana aanu isku dayna inaanu tanaasulaad badan si aan qarannimadeena iyo amniga wadankeena ayna wax u yeelin inaanu annagu tanaasulaad badan sameeynay baan filaynaa laakiin cidda xalinta khilaafkaasi ilaa imika uu sugayo talooyin badan iyo cid walibana ay ka hadashayna waa xukuumadda مثلا هدانو ديب مالمهن ديب ugu noqono dhacdadii ugu dambeysay ee Xariirad dhacdada Xariirad kullay waxay ku saleysnayd in dibtii Saylac ka dhacday ee ay xukuumaddu garab martay dariiqii loo mariyay tusaale ahaan hadaanu ka sheekayno sida ay u garab martay halka Saylac yaalay bilowgiisii xalkiisii wuxuu ka bilaabmay in boorama loo doono dadkii xukuumaddu ay u soo ergisitay hawshaasi iyo dad fidnad oogayaal ah oo deegaanka beesha boorama ahina ay ka faa'iideysteen inay huriyaan bahashaas wax halka horta xal ah oo boorama ka yaalay ma jirto ilaa haddana waxaan ugu maqal ah inay kolba wafdigii xukuumaddu waxa uu noogu sheegay inuu khilaafka xalintiisa wado oo war khayr qabana waa sidaaba ka mid ah kelmadihiisii oo khilaafka daweynaya waxba nooma sheegin bahashii uu boorama kala yimid deebu Jabuuti la galaya inuu la carray de markii boorama cadam wuxuu ahaa ninkii reer boorama lahaa reer boorama farxa halkii Saylac baan inii hayaa ninkii yiri waa ku qalcinay dadkii kullay waxay u daaraadeen anigu ma garanayo kullay hawl kale ahayd hela ninkii yiri waa de kullay qolada uu Jabuuti ugu tagay ciisana malaha hela uu naga yiro waan hayna taasi waxay cadeynaysaa in ay fidnad ay xukuumaddu wado ay ka mid tahay qaarkood marka waxaan u leenahay ilaa imika halkaasi iyagoo odayaashii ay ku xiran yihiin boorama oo sidii loo qaadayna ay si khalad ahayd qaadistoodii wardad hadii wax ka dhaxay Xariirad ma taal ma garan karnaba sababtu waxa weey dadkii ay wax weydiinayeen wax laga doonayo way haystaan wax leeyin oo odayaashii xuqaashi wax garadkii waa weynaa reerka hoggaanka ka ah meesha degan xabsiga ugu xiran yihiin Xariiradna waa tagaynaa مسؤولينتي عيسى وزيرادودي xildhibaanadoodii waxgaradkoogii iyo kuwii kale siyaasiyiinta ah hargeysa wada joogan waxba way gooyin waayeen in loo qiimeeyo bini'aadnimada dhinac laga soo galo oo la yiraahdo warba dadkiina arrinka keena dhibaatooyinkaasaa jireen waxa loo qiime ku fadhiyaan ma jirto dawladdaana ka dambaysa waxa weeye odaygiina waan ka imi oo uu xuleeyahay mid baan sayidin sheegaya ayaan daradu waxay ka taagan tahay ummadaha kale kolka khaaqul ka dhaxdhaco dawlad iyo guurti iyo baarlamaan iyo cid waliba way dhaqaaqdaa hadday miisaankaygu kula fududaaday way u eg tahay wayna u dhowdahay wayna tahay عبد السمد محمد عبد الله شنيدة نيوس مقالة السيلع.